xulka da'yarta qaranka Soomaaliya ee ku guuleystay koobka bariga iyo bartamaha Afrika kadib guul weyn oo ay ka gaareen xulka da'yarta South Sudan. Soomaaliya ayaa bilowga ciyaarta la hormartay gool u dhaliyay Cabdixafiid oo ahaa ciyaaryahankii dhaliyay goolkii guusha ee kulankii hore, waxaana qaybta hore ee ciyaarta lagu kala nastay hal iyo eber oo ay Soomaaliya ku hogaaminaysay. በዚህ ውድድር ላይ ክስተት የሆነ ልጅ ነው አስቆጠረ። qaybta labaad ee ciyaarta xulka South Sudan ayaa iska soo guday goolkii lagu lahaa waxayna ciyaarta ka dhigeen barbardhac. daqiiqada kadib xulka da'yarta qaranka Soomaaliya ay u suurta gashay in dhaliyaan goolkii labaad ee ciyaarta, waxaana shabaqa ku hubsaday Cabdiraxiim Muxiidiin Daahir oo ah xidiga Soomaaliya uga ciyaarayay booska weeraryahanka. Amepewa namba 21 amepewa kadi kwa sababu amevua jezi alipoingiza goli, kwa hiyo ana kadi isla Cabdiraxiim Muxiidiin Daahir ayaa daqiiqada kadib Soomaaliya u dhaliyay goolkii saddexaad oo ahaa mid si weyn looga soo shaqeeyay wadnahana jaray taageerayaasha iyo xidigaha xulka South Sudan maadaama rajadooda ay ceel ku dhacday. ciyaarta ayaa ugu dambeyn ku soo dhamaatay 3-1, waxaana sidaasi koobka ku qaaday xulka qaranka Soomaaliya, taasoo farxad weyn u ah ummadda Soomaaliyeed. xulka qaranka da'yarta Soomaaliya ee ka yar 12 sano ayaa la filayaa inay bari ka soo degaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, halkaasi oo loogu sameyn doono hadduu eebba yiraahdo soo dhaweynaad ballaaran. ቡድን አባላት ጋር ደስታቸውን ገልጸዋል። የሚገርም አሳዛኝ ማስደሳች አጋጣሚ በዚህ ቅጽበት ተመልክተናል። የሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን zilikuwa ni timu kutoka hapa Ethiopia, Somalia, Burundi, Tanzania, Uganda na Sudan Kusini. የ2022 ከ17 ዓመት በታች የሴካፋ ውድድር በኢትዮጵያ ምድር የተዘጋጀውን 6